bisha Ramadaan fadaa'isheeda waxaynu u gudbaynaa maxaa bisha Ramadaan laga faa'iideeyaa bisha Ramadaan faa'iidadeeda horta bisha Ramadaan dhowr faa'iidooyin badan bay leedahay waxyaabaha laga faa'iideeyo laakiin bal dhowr kamid aan sheegno kow bisha Ramadaan horta waxaa laga faa'iideeyaa bisha Ramadaan shayga koobaad weyn waxa weeye in ay naftu xambaarto dulqaadna u yeelato waxyaabaha adag ee qalafsan macnaha inay naftu xambaari karto waxyaabo adag marka qofkii lagu yiri maalin dhan wax ma cuni kartid 12 saac iyo ka badan wax ma cabbi kartid shahwa ma gudan kartid hadal xun kuma hadli kartid waxaa lagu tababarayaa nafta in ay taxamul iyo sabr u yeelan karto inay wax badan ka tagi karto waxyaabo badan u dulqaadan karto waxaa kamid ah walaal fawaa'ida bisha Ramadaan laga faa'iideeyo bisha Ramadaan qalbiga ku jilca qalbiga ku dabca ilaahay dhikrigiisa lagu xasuustaa soo qofku dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu fududaado qalbiga ku dabca qodobka saddexaad ee laga faa'iideeyo bisha Ramadaan waxa kamid ah soomku wuxuu waajibiyaa ilaahay cabsidiisa subhanahu wa ta'ala cabsi baa laga faa'iidaa soomku waa ilaahay ka baq weeye sidoo rabbi leeyahay la'allakum tattaquun qodobka aan doonayna ugu dambeeya aan ku soo gaabinayna waxyaabaha laga faa'iidaa bisha Ramadaan waxa kamid ah waxa ku jirta fawaa'id tibbiya caafimaad baa ku jira bisha Ramadaan jirku caafimaad ugu jira jirka caafimaad baa ugu jira sida daraadeed baa dad badan ku caafimaadeen qofka culayskiisu aad u farabato kale waa daawi u yahay waxyaabo badan oo caafimaad iyo xitaa caloosha kamid ah ayaa ku jira bisha Ramadaan soomkeeda way waan ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa qofka doonaya inuu soomo aadaabta looga baahan yahay guud ahaan qof kasto muslima waxa waajib ku ah inuu horta isku qurxiyo aadaabta shariicada inuu aadaabta sharciga isku qurxiyo akhlaaqda wanaagsan inuu isku qurxiyo waxyaabaha xun inuu ka tago kow aadaabta loo baahan yahay waxa kamid ah bisha Ramadaan in lagu soo dhaweeyo farxad iyo reen iyo lab furnaan in lagu soo dhaweeyo bishii Ramadaan waxyaabo inooga waxba kama hadhin saacado kooban baa ka haray waqtiga dhala lahayd ilaahay caafimaad iyo amni iyo nolol haynagu gaarsiyo waa in bisha Ramadaan farxad lagu soo dhaweeyaa aadaabteeday kamid tahay qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un waxa kamid ah waxyaabaha aadaabta leenooga baahan yahay bisha Ramadaan inaynu ilaahay ugu mahadnaqno allana ugu shukrino inuu alla bisha Ramadaan ina soo gaarsiiyay ilaahay inaynu weydiisano inuu inoogu kaalmeeyo soomka bisha Ramadaan iyo acmaasha saalixada ah inuu ilaahay inoo fududeeyo inaynu ducaysano sidoo kale waxa sunno ah marka bisha Ramadaan la arko ay dhalato in lagu ducaysto xadiidka Abdullah ibn Umar nabigu wuxuu ku ducaysan jiray markuu bisha Ramadaan arko Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله إلهي وبشر نقول لي أمني إيا إيمان نبت قليا إيا وناك توفيق إيا التصنان إيا واحد عشر عليك التهي مركز النبي بشر لها اللي تشري ورنشري بلي هاي ربي جاي يا ربي جابه والله مركز دعاء الله آخر سنة إن قبلة الله قابلة يا أو الدعاء سنة يا وي وحكم إذا آداب ولا لوبة هي بشر رمضان in la soo lagu soo dhaweeyo inaan la soomin bisha Ramadaan ka hor inaan bisha Ramadaan ka hor la soomin oo macnaheedu ay tahay yawm shaki maalin la dhaha jirta yawm shaki oo ah maalinta bisha Shacbaan ay tahay 29 Ramadaanna way noqon kartaa mana noqon karto maalinta la shakisan yahay ee aan bishii Ramadaan la hubin inaan la soomin aan la soomka la iska ilaaliyo aadaabta loo baahan yahay bay kamid tahay waynu soo marina bisha Ramadaan aragtideeda lagu soomayaa ama bisha Shacbaan ba sodonkeeda la dhameystiraya waxa kamid ah walaalayaal aadaabta loo baahan yahay bisha Ramadaan in la ilaaliyo in la daa'imo suxuurta baraka ku jirta in la daa'imo suxuurta dibna loo dhigo nabigu wuxuu leeyahay tasaharu fa inna fi suxuri baraka suxuurta baraka ku jirta nabigu markale wuxuu leeyahay inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin ilaahay iyo malaa'iktiisu waxay u duceeyaan dadka suxuurta weey marka suxuurta baraka ku jirta barakada ku jirtana sheegideedu waqti bay naga qaadanaysaa waxa kamid ah ina sunnada rasuulka raacayso waxa kamid ah khilaafada yahuuda waxa kamid ah in jirkaagu firfircooniyo awood yeelanaya maalinta marka suxuurato
marka suxuurta baraka ku jirta yadana in la ilaaliyo aadaabta waxay kamid tahay soomka wa suxuurtuna waa shayga ilaahay islaamka ahlu kitaabka lagu kala sooco waa ka nabigu leeyahay faslun ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وحنا كلا ساريا صوم كيجا يا صوم كأهل كتابك وسحور توي وحنا وعن سحورنا يسوع إن التمر لسعته التمر كشرته وكنا بيقول ليه النعم السحور المؤمن التمر وحنا نعمل الله هذا سحور تقفك مؤمن كي التمر توكل سحورته وحيابها ولا ليال وحكم إذا aadaabta loo baahan yahay in suxuurta dib loo dhigo inta suxuurta dib loo dhigi karo oo goor hore oo habeen bar aan la sii suxuuran ee suxuurta dib loo dhigo aadaanka un baad iska ilaalinaysaa waa ka nabigu oranaya inna ma'shara al-anbiya'i umirna an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira suxurana waxaan haddaanu nahay ambiyada waa nabiyada dhan buu nabigu ka hadlayaa waxaana la amray inaanu dib u dhigno afurka inaanu afurka soo dadajino suxuurtan aanu dib u dhigno waxaa kamid ah walaalayaal aadaabta loo baahan yahay bisha Ramadaan in la ilaaliyo in suxuurta la dadajiyo axana afurka la dadajiyo maxaa laga wadaa marka aad xaqiijiso inay qorraxdu dhacdayba hore aad ka afuraysaa macnaha dad baa markay afurayaan suga inta habeen ka noqonayso waa maya la sugi maayo qorraxdu haday godka gasho hore laga afuraya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fidra dadku ka suuli maayaan khayrka inta ay afurka dadajinayaan nabigu markale wuxuu leeyahay la tasalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fidriha an-nujum ummadaydu ka suuli mayso inay sunnadayda haysato intaysan sugin intay xidigu ka soo baxayaan marka intay xidigu ka soo baxayaan habeen ay ka noqonaysaa sugin ee qorraxdu markay dhacdo hore ka afurku wuxuu leeyahay waxyaabo sunna ah horta kow waxyaabaha sunnaha ee afurku leeyahay waxa kamid ah in markaad afuraysa afurkaaga aad timir ku bilowdo waxa laga yaabaa markaynu afurayna waxyaabo badan baa la isi soo hordhiga lagu afuraa shayga koobaad ee afkaaga aad galinaysaa waa inuu timir noqdaa wali timirta inay rudabtaa wacnaa lahayd nabigu Anas bin Malik baa wuxuu leeyahay كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رضبات قبل أن يصلي نبي وحكو أفري جري تمرت الرضبات تمر رضبة أنتو سنتو كان كهر مركا waxa koobaad afkaaga galinaysa waa inay timir noqotaa waxa kamid walaal marka la afurayo in lagu ducaysto ducada rasuulka oo nabigu muxuu oran jiray dhahaba ad-dama'u wabtulat al-uruq ama wabtalat al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah haraadki waa tagay xididadii qallalana waa qoyeen ajarkiina waa sugnaada insha Allah ducadaas in la akhriyana waa sunna marka aad afurayso waxa kamid walaal aadaabta loo baahan yahay soomka in cadayga la ilaaliyo cadayga in la ilaaliyo galin horiya galin dambaba duhur iyo habeenba mar walba cadayga in la ilaaliyo cadaygu waa wanaagsan yahay waana sunne inaad cadayga ilaaliso waa muhiim weey waqti walbana cadaygu waa banaan yahay weey qodobka ugu dambeeya walaalay aan ku soo gabagabaynayo qodobkan waxa weeye guud ahaan qofku waa inuu ku dadaala bisha Ramadaan cibaadada sadaqada salaada quraan akhriska waa inuu ku dadaala نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير نبي وحوها خير كالسمين تيسا كود سنة وكان أجود ما يكون في رمضان وقت يدا وجود سنة وحكم ده بشهر رمضان مركا بشهر رمضان إن عاد الله بدي قرآن آخرسك خاصة قرآن كحوق الله صاره قرآن كحوق الله صار آخرس كيسا aad bay muhiim u tahay guud ahaan cibaadada la sameeyo oo lagu dadaalo cibaadada muhiimka ah ee la sameeyo bisha Ramadaan waxa kamid ah umrada laakiin nasiib daro masiibada xanuunka ay jirta sanadkan suurtagal maaha in la soo umraysto ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyo oo inoo soo hagaajiyo inoo kala furo xaramkan ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo furo qodobka ugu dambeeya qodobka ku gabagabeynayo waa qodobka ugu dambeeya waxa weeye soomkaagaas faa'iido yeelan maayo kuna anfici maayo haddaadan iska ilaalin waxyaabaha maxaa iska ilaalinaysaa wax kastoo xun oo qowl ah afka ka soo baxa
iyo wax kastoo xun oo ficilaha xubnaha laga sameeyo waa iska ilaalinaysaa wax kastoo xun oo afka laga sameeyo afka laga hadlo cay aflagaado been xan isku dir muran kaftanka faraha badan qosolka maalayacniga ah maagista dadka dhaleecaynta dadka dhagaysiga dadka hadalladooda la dhagaysto waxaasoo xun iyo in meelaha xunxun la fiiriyo fiidyada xun la daawado heese la dhagaysto waxyaabaha noocaasa haddaadan iska ilaalin soomkaagaasi faa'iido yeelan maayo bal walaalayaal u fiirsada nebiga hadalkiisa nebigu wuxuu leeyahay man lam yadac qawla zuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatan fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu qofkii aanan ka tegin hadalka suurkaaya markhaatiga beenta ahan ka tegin iyo ku camalfalka uu beenta iyo xumaanta ku camalfalayo ilaahay dan kama laha inuu soomo iyo inuu soomin ilaahay dan kama laha inuu sharaabkiisa cabitaankiisa ka tagiyo in kale miyaa marka haddaad sooman tahay oo aad afxidhan tahay oo gaaja ku dilayso haraad ku dilayo ilaahayna uusan dan ka lahayn ka warram soomkaagaas subxaan allah nebigu mar kale muxuu leeyahay ruba saa'imi laysa lahu min siyaamihi ila juuc wa ruba qaa'imi laysa lahu min qiyaamihi ila sahw nebigu wuxuu leeyahay badanaa mid sooman oo soomka aan ka faa'iiday haraad mooyaane wax kale gaajo mooyaane wax kale ajar ma leh baabah badanaa mid taagan oo salaad u taagan oo aan salaadaa ka faa'iidayn daal mooyaane wax kale marka qofka xumaanta noocaasa ku dhaqmaya afka kaga dhaqmaya ama indhihiisa ka fiirinaya ama xubnihiisa ka samaynaya wax uu anfacayo uu taray soomku waa ka ansaxaya laakiin ajarka iyo faa'iidada ma yeelanayo wey ma yeelanayo nebiguna in badan waa kii lahaa xadiidkii qaala allahu alla waa kii yidhi kullu camali ibni aadam lahu ila siyaam fa ina lahu wa ana ajsi bih wa siyaamu junna camal kastoo in aadam leeyahay isagaa iskale soomka mooyaane anaa iskale soomka waan ka abaalmarinayaa nebigu alla leeyahay alla wuxuu leeyahay wa siyaamu junna soomku waa gaajaan وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم نبي حليه قفك الصومني يناف لقادو عي حمان سمين هدو قفك عاي أدقو الصومن هل دقال من وحاد هذا أنوان صومنا هاي ده مركا qofkii soom hadduu qofku aflagaadeeyo xitaa ku caayo khalad kula soo galo halla hadle waan soomanahay dheh iska daa kadibna waxaa ka mid ah walaal aadaabtaas loo baahan yahay qofka sooman inaad dadka muslimiinta aafuriso haddaad awoodi karto dadka muslimiinta aafuri oo masaakiinta aafuri laakiin hadda waqtigaynu taaganahay taasi suurtagal maahan u malaynayaayo halla kala cararaa la yidhiba guryaha ayaan laga soo bixin subxaan allah ilaahay subxaana wa tacaala imtixaanka haynaga qaado nebigu wuxuu leeyahy sala allah alay wasalam من فضر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا قفكي آفريا قف صوما قفك آفريا وحا أسقناضي قفك آفريا سي أجركي سوكلا الليضة أجرك قال ما أنت صومانين والليضة قفك آفريا سي أجركي سوكلا والليضة كور هذا تمن قف آفريا امسا قف بالأجرك والليضة تمن قف بالليضة هذا الله باتنا أفريسا كورن الله باتن قف أجر كل هذا هوي مركز كين لا أفريو أو أفريد اللي جود ذاله يدنا هو مهم وي ما هينا ضلعت بدن بحسه ما هينا هنتيس لا عشان سيسو وأفريد كليا أفريد كليا أجر كين تالي كويه يساوي وحكمنا ولا الآلات